cabdirasaaq khaliif gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo kulan warbaahineed ku qabtay gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay kulan dhex maray xisbiyada mucaaradka ah iyo xukuumadda Soomaaliland oo uu shir gudoominayay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kaasoo lagaga hadlayay shir uu sheegay in maalinta bariya uu dalka Djibouti uga furmi doono Soomaaliland iyo Soomaaliya kaasoo la xiriira wada hadalladii muddada soo taxnaa waxaana shirkaasi sida uu sheegay dawladda dalka Mareykanka waxaana la filayaa in maalinta bariya 6 xubnood oo uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ay ka dhoofaan magaalada Hargeysa isla markaasina ay tagaan dalka Djibouti halkaas oo uu ka furmi doono shirkani wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya oo ay ka qayb galayaan wadamo kala duwan oo danaynaya inay wada hadlaan Soomaaliland iyo Soomaaliya madaxweynuhu ka warramay in bari oo axada waftu isagu hogaaminayo oo 6 xubnood ay u bixi doonaan dalka Djibouti aynu walaalaha nahay kana qayb gali doonaan shir ay isugu iman doonaan jamhuuriyadda Soomaaliland madaxdeeda iyo wafti ka socda iyo xubno ka socda dawladda federaalka Soomaaliya shirkaas oo uu qabtay dawladda Mareykanka ay qabatay ayna gogasho dhigtay dawladda Djibouti waxa uu noo sheegay madaxweynuhu in hadeerto ama waqtigan aynu joogno ajende gaar ah oo faahfaahsan oo uu bixinayo ama uu hayaa aanay jirin kaliya loogu yeedhay inay ka qayb galaan shirkaas wixii tala ahayd ee markaa uu bidayay xisbiyada qaranka waa uu weydiiyey waxaana uu sheegay in uu jecel yahay shirkaas wixii ka soo baxa inuu axsaabta qaranka iyo ummadda Soomaaliland labadaba ku soo celiyo marka inta laga tago sida aad ogtihiin horena aan idinku sheegay shirkada wada hadalladan waxay bilaabmeen 2011 xukuumaddii Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa ogolaaday golayaasha qaranka oo golayaasha xeerdejinta ah waxa ogolaaday oo iyagana arinta iyada lagu casuumay markii ay bilaabmayeen golayaasha dhaqanka waxa ogolaaday oo ka qayb galay xisbiyada qaranka waxay joogsadeen 2015 bishii saddexaad labadeedii kulankii ugu dambeeyay ee Istanbul lagu qabtay ayay joogsadeen waxana ay ahayd arin la isku waafaqsan yahay oo Soomaaliland hay'adaheeda kala duwan ay isku waafaqsanaayeen inaynu garteena geeyno golayaasha caalamiga ah si aynu dalkan ugu raadino aqoonsi caalami ah marka haddaba xisbiga aragtidiisa iyo fikirka oo arinta ka qaba waxa ay tahay guud ahaan inuu ogol yahay oo aqbalay sidoo horeba u aqbalay wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya inay socdaan waxaanuna iyadana sidaas la eg taageersanahay in mandate-ka iyo awoodaha sharci ee xukuumadda ay u siiyeen sharciga dalku u siiyay inay hogaamiso wada hadalladu haddii ay u baahato ama ha noqoto axsaab qaran ama ha noqoto golayaal qaranna cidii ay u baahatana ayadu xaq u leedahay cidii ay talada dalka uga maarmi weydo ama qaybgalka shirarka ay uga maarmi weydo inay iyadu u yeedho oo anagu aanan ku haysan xisbi ahaan talada iyo hogaamintii ay xaq u lahayd waxaanu xisbi ahaan ku baaqaynaa xukuumaddu iyada oo ku dhaqmaysa ilaalinaysana xuduudaha sharci ee dastuurku siiyay inay ka qayb gasho shirkaas wax kasta oo ka soo baxaya shirkaasina ay u raacdo habraaca dastuurka iyo shuruucda dalku iyo awoodaha ay siinayaan xukuumadda wixii ka baxsan arinta iyada ah xisbi ahaan xukuumadda kuma taageersanin kulamana soconno waxaanu sugaynaa ka hor dhicmeeyay waqtiga ay soo baxaan ayaanu sugaynaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo arinta iyada ah madaxweynaha hadda talada hayana waxa laga sugayaa wixii dhiban ee qabiyo ah inuu dhameystiro oo ay ka mid tahay inuu dalkan u helo aqoonsi caalami ah waanu ku taageersanay ka qaybgalka wada hadalladaas isagoo ilaalinaya xuduudaha sharci iyo awoodda uu dastuurku siiyay waa Idris Bershiya telefishinka Universal Hargeysa.